telefishinka caalamiga SBC waxa uu wareysi gaar ah maanta la yeeshay siyaasi Cabdilaahi Maxamuud Suldaan Cabdisalaan oo kamid ah siyaasiyiinta reer Soomaaliland gaar ahaan ka soo jeeda gobolada bariga ee Soomaaliland. Siyaasigu waxa uu ka hadlay saami qaybsiga golaha wakiilada Soomaaliland isagoo oo sheegay in bariga Soomaaliland gaar ahaan gobolada Sool iyo Sanaag aanay sidaas ku gali doonin golaha wakiilada doorashooyinka dhici doona sababo la xiriira saami qaybsiga. Shaqada sidii hore lagu gali karin. go'aanka uu madaxweynuhu gudbiyay in golaha wakiilada in doorashada sidii hore lagu galana aanay saxsanayn sababtoo ilaa la saxo saami qaybsiga beelaha Soomaaliland inaan doorashada sidii hore lagu gali karin iyadoo awalba ay beelahaasi cabasho badan iyo tabashooyin badan ay qabeen oo xagga golaha wakiilada oo xagga saami qaybsiga oo la ogaa maanta haddana sideedii lagu galaa waa dhibaato sida daraaddeed waxaan leenahay doorasho kasta oo dhacda annagu waa ka hor imanaynaa waana diidaynaa haddii aan la sixin saami qaybsiga beelaha iyo wixii ay heli lahaayeen beeluhu in lagu qaybsado waayo markii horena Soomaaliland boorame ayaa lagu qaybiyay qaabkii qabaa'ilka iyadoo lagu fadhiyo lagu qaybiyay oo aan si fiican beelaha saami qaybsigoodu aan u saxsanayn ayaa haddana doorashadii la galay maantana in sideedii lagu galaa waa dhibaato marka taa adigu waa ka hor qodobka kale meesha ku jiraana isaguna waxa weeye in dadka goboladaasi hadda ay tiro haystaan codbixina ama kaarar oo diiwaangelintii isdiiwaan galiyeen doorashadii madaxtinimadana ay galeen oo ay codad badan haystaan sidii horena ay ka duwan yihiin isla markaasna madaxweynuhu uu ku baraarugsanaado ayaa la doonayaa oo uu ogaado in dadkaasi aanay hadda sidii hore ahayn waayo waayadii hore aan laga codeyn jirin ayaa waagi dhaweeyay ee madaxtooyada laga codeeyay codad badanna way haystaan diiwaangelinta soo socota ee golaha wakiilada isu diiwaangelinaya doorashadeedana way ka qayb galayaan oo kaarar intii hore ka badan ayay helayaan sidaa daraadeed iyadoo ay sidaas tahay oo ay doorashadii diyaar u yihiin kaararkoodina ay haystaan rabaan inay cod bixiyaan oo aan sidii waagi hore oo kale ahayn oo marba talaabo ay dadkaasi dalka ula qabsanayeen oo horumar ay u sameeyeen xagga cod bixinta iyo doorashada ah in maanta la yiraahdo sidii hore lagu galeeyaa maaha taas waxa weeye waxay dhaawacaysaa yaani tirada xildhibaanada ay leeyihiin ee golaha wakiilada ay ku yeelanayaan dhanka kale waxa uu baaq u diray dadka walaalaha ee ku dagaalamay deegaanada Ceelaf Weyn waxa uu madaxweynayaasha Soomaaliland iyo Puntland ugu baaqay inay qaataan waawaanta nabadeed ee dhinacyada ka socota Ceelaf Weyn dadaan isku dagaanahay weeyi dad walaalaha ayaa weeyi waxaan leenahay in badan nabad baa loogu baaqay haddana nabadii waa lagu jira waxaan leenahay wax dagaal idin taraya oo idin faa'iideynaya ma jire isdaaya habar lamaan ayaa tihiin sida daraadeed waxa idin fiicnaa nabadda qaadataan wiilka ku dhintaana dhibaato u baadin ku kordhaysa idinka iyo dadkiinaba mushkilad uu idin keenaya marka waxaan leenahay iyagana ilaahay xaq ah idin tuso in badan waa leedin la hadlay hadda wax ku qaadanaysaan marka haddii hadal wax tarayo waa inaad ficil u bedeshaan oo aad nabadda qaadataan oo aad isteysaan dagaalkana joojisaan daawatayba tageen oo soo noqdeen oo shir jaraa'id qabteen oo sheegeen inay halka nabad u tageen nabaduna waa fiican tahay in lagu soo dabaalo dalka wax dagaalka ka socdaana ama iyo ciidamada hor fadhiyana wax weyn soo kordhin maayaan oo waxay keenayaan colaad iyo isnaacib dadka dhexdiisa ah marka haday iyagu isxilqaameen oo qaar kale oo Puntland baa naloo sheegay inay yimaadeen Hargeysa oo iyaguna nabad ka shaqeeyeen cid kasta oo nabad ka shaqeynaysa waa soo dhaweynaynaa oo wanaagsan hadii wax u qabsoomayaan oo ay dadku ay dhageysanayaan ama labada madaxweyne Cabdiweli iyo Muuse ay dhageysanayaan nabadana fiican iyo isu socodka dadka wixii nabada ayaanu ku dhiirigelinaynaa in nabad meesha ka dhacdo aan cidina ku dhiman sidii waagi hore la soo ahaa la isu dhexmari jiray isu socon jiray iyadoo colaad iyo baqdin iyo ciidamo iyo hayo iyo cabsi iyo waxba aanay jirin in sidii wadanku uu noqdo ayaan anagu insha Allah rajaynaynaa wixii nabada oo aan cidna cid kale aanay ku xadgudbin xuduudahooda iyo dalkooda iyo meesha qof walba waxa uu leeyahay Maxamed Jaamac Umal SBC TV Hargeysa.